بسم الله الرحمن الرحيم وهبين مسبتيه او اي حد سو غليسو 23 bisha August sanadka 2025 oo ku beegan 29 bisha Safar sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada barnaamijkan caawa aan idinku haynana waxa kamid ah Israa'iil waxay qiratay askar hor leh oo looga dilay marayka Gaza waxa kamid ahaa sarkaal sare waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan iyadoo tani ay ku soo aadayso xilli caawa bayaan ay soo saareen guutooyinka al-Qassam ay ku shaaciyeen in ay gubeen taangiyo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin gaar ahaan howlgalo ka dhacay xaafadda al-Zaytuun Israa'iilna waxa la sheegayaa in ay dejisay qorshaha hareeraynta Gaza iyadoo la bilaabi doono in dadka laga daadgureeyo maalmaha soo socda goobahaasi gudaha Israa'iil waxa ka socda kulamo xasaasiya oo ku aadan arrimahan iyadoo maalinta Talaadada la sheegay in la go'aamin doono go'aanka ugu dambeeya ee marayka Gaza dood adag ayaa caawa dhex martay wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich iyo abaaduulaha ciidanka Israa'iil iyadoo la kala qabtay labada nin haddaba maxay isku hayaan xog baan idinkaga haynaa waxaynu kula eegi doonaa Iiraan oo shaacisay in ay burburisay shabakad jawaasiis ah oo Israa'iil ku xiran gudaha Israa'iil hadaynu ku laabanana barnaamijyo ayaa la sheegaya caawa inay ruuxeen magaalooyinka Tel Aviv iyo kuwa kale iyadoo laga soo horjeedo dagaalka ka socda marayka Gaza waxa la dalbanayaa in si degdeg ah dagaalka loo joojiyo maxaabiistana la isku dhaafsado sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aan idinku hayaana waxay ku aadan tahay haweeney aan wax khibrada u lahayn orod isla markaasna aan haysanba qalabkii loogu talagalay ayaa ku guuleysatay tartan orod waliba kaba waxay ku socotaa caag ah sheekadan xiisaha leh ee soo jiidashada iyo dhiirigelinta ah iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinaynaa siimoodi dahablaha ugu weyn geeska Afrika haddii aad samayso wacan dahab aad sugayso saadaalinaysay Singapore iyo saf Bahrayn iyo Hindi noocyada u sarreeya oo si wacan loo naqshadeeyay waxaad ka helaysaa xarunta siimoodi waa dahablaha ugu weyn geeska Afrika dahabyada uu iibinayo waxa kamid ah Bahrayn Singapore Hindi designs waxaana aad ka helaysaa jumlo iyo tafaariiqba waxaana uu xarumo ku leeyahay Dubai iyo Hargeysa faahfaahin dheeriya waxa aad kala xiriirtaa WhatsApp-yada Hargeysa iyo Dubai ee aad ku aragto shaashada xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo kaliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rug cadaa ah kana soo shaqaynayay hawlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta wixii faahfaahin ah oo inta dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadaya si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa dhanka Iiraan halkaasi oo mas'uuliyiinta ammaanku ay xaqiijiyeen in ay burburiyeen oo ay ka hortageen isla markaasna ay fashiliyeen shabakad jawaasiis ah oo lagu tilmaamay argagixiso oo hadalka loo yeeriyo oo Israa'iil la xiriirta arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmo ka hor booliis ka tirsan ciidamada booliiska lagu dilay gobol ku yaala waddankaasi Iiraan haddaba aynu eegno warkii ugu dambeeyay ee amuurtan mas'uuliyiinta laamaha ammaanka Iiraan ayaa waxay shaaca ka qaadeen in la dilay 6 xubnood oo ka tirsan shabakadaasi lagu xiriirinayo Israa'iil waaxda sirdoonka ee gobolka koonfurta bari ee Sistan iyo Balochistan ayaa warkan u xaqiijisay warbaahinta gobolka Sistan iyo Balochistan waa mid ka mid ah meelaha ugu xasaasisan ee Iiraan halkaasi oo mararka qaar ay isku dhacaan ciidamada ammaanka iyo kooxo hubeysan oo ay ku jirto kooxda Jaysh al-Adil oo ay dawladda Iiraan ku tilmaamtay urur argagixiso baarlamaanadii shalay gobolkaasi waxa lagu qaaday weerar hubeysan 2 baabuur oo ay wateen ciidamada ammaanka weerarkaasi ayaa sababay
dhimashada 5 askari oo ka tirsan booliiska Iiraan meel ku dhow magaalada Iiraan Shaar xilli ay fulinayeen howlgalladooda joogtada ah. weerarkan ayaa dhacay kadib markii weerar gaadma ah lagu soo qaaday ciidamadaasi iyadoo ay ka dambeeyeen kooxa hubaysan. maalmo ka hor xogayaha golaha ammaanka qaranka Iiraan Ali Larijani ayaa qiray in arrinta ku saabsan soo gelitaanka Israa'iil ee gudaha Iiraan ay tahay mid khatar aad u badan xambaarsan, isla markaasna loo baahan yahay arrinkaas in la wajaho. sida ay sheegtay jariirada Britain ka soo baxda ee The Times, Iiraan ayaa xirtay 10,000 oo qof kadib markii mas'uuliyiintu ay amar ku siiyeen ciidamada ammaanka in ay qabqabtaan basaasiinta la shaqaynaya Israa'iil, kuwaasi oo ka caawiyey dilka taliyaal ciidan saynisyahano sare intii lagu jiray dagaalka 12 maalmood socday ee Iiraan iyo Israa'iil. war kale oo la xiriira arrimaha Iiraan, baarlamaanka Iiraan ayaa maanta wuxuu shaaca ka qaaday in si buuxda loo diiday wax uu ku qeexay siyaasadda reer galbeedka ama ka tanaasulka barnaamijka nuclearka. Ibrahim Rizai, afayeenka guddiga amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee baarlamaanka Iiraan, ayaa ka shaqeeyay in Faransiiska hadda uu ka gudbay arrimihii la isku hayay ee barnaamijka nuclearka, isla markaasna uu doonayo inuu xayiraad ku soo rogo barnaamijka gantaalada Iiraan, isagoo dhaleeceeyay isku dayga reer galbeedka ah in Iiraan laga qaado cunaqabataynta. arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Iiraan maanta ay ku hanjabtay suurtagalnimada in la soo saaro xayiraado kalena maraakiibta cadowga ee ka gudbaya gacanka Hormuus. mas-uul sare oo reer Iiraan ah ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay wargeyska Kayhan in xaaladaha hanjabaadaha iyo dagaalku ay tahay in ay la jaan qaadaan tillaabooyinka ay tahay in la qaado, isla markaasna waxa uu sheegay in kaararka qaran ee difaaca madax banaanida iyo tan qaranka ay tahay in la isticmaalo. haddaba xaaladan ayaa waxaa la sheegayaa Iiraan inay u diyaar garoobayso haddii wadamada reer Yurub cunaqabatayn ay saaraan Iiraan, in markaa ay suurtagal tahay maraakiibtooda in laga mamnuuco gacanka Hormuus. weli arrintu waxay joogtaa wadahadal. maalinta Talaadada ayaana waxaa la sheegayaa in wadahadallo ay yeelan doonaan mas-uuliyiin ka socda Iiraan iyo weliba midowga Yurub. laakiin qodobkan Faransiiska uu ku soo daray wadaxaajoodkii hore ayaa waxaa la leeyahay Iiraan waa ay ka booday. qodobkan wuxuu leeyahay waa in laga wada hadlaa barnaamijka gantaalada ee Iiraan. arrintan maanta warbaahinta Iiraan aad bay u faalloonaysaa. sidoo kale waxaa ka faalloonaya dadka shicibka ah oo baraha bulshada isticmaala. waxay leeyihiin gantaaladu waa awoodda keliya ee aynu leenahay, mana ka aqbalayno wadamada reer galbeedka oo Faransiiska ugu horeeyo in la joojiyo ama la burburiyo barnaamijka gantaalada. arrintan waxaa kaloo loo fasiranayaa inay tahay Israa'iil in ay la yaabtay awoodda Iiraan ee xagga gantaalada, gaar ahaan kuwa hypersoniga oo weliba la leeyahay qaar ka mid ah dagaalka looma isticmaalin. marka waxay u muuqataa bay leeyihiin Iiraaniyiintu arrintan inay tahay arrin Israa'iil ka dambayso iyo Mareykanka, laakiin wadamada reer galbeedka ay soo gudbinayaan. Iiraan waxay kaloo ku hanjabaysaa inay ka bixi doonto heshiiska la yiraahdo NPT ee xakamaynta nuclearka. haddaba xaaladan waxay ku dambayn doontaa waynu isla arki doonaa, waynu isla ogaan doonaa insha Allah. barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wixii ku soo kordha arrimahaas. waa hagaag, warar kala duwan ayaa inoo soo socda, laakiin markan bala eegno xagga Ruushka, halkaasi oo la sheegayo in Ukraine ay qaaday weerar xagga cirka ah oo lagu beegsaday magaalooyin kala duwan. gudoomiyaha magaalada Moscow, Sergey Sobyanin, ayaa waxa uu sheegay in maanta ciidamada difaaca cirka ee Ruushka ay soo rideen diyaarad daroon ah oo ku soo socotay magaalada caasimadda ah ee Moscow. waxaana la sheegayaa in haatan baaritaan ay ku hayaan burburkii diyaaradda kooxaha khubarada u leh arrimahani. waxay tani ku soo aadaysaa iyadoo warbaahinta waddankaasi Ruushka, gaar ahaan wakaaladda wararka ee Rosavistia, ay sheegtay in mas'uuliyiinta dhowr garoon oo ku yaala bartamaha waddankaasi la xiray kadib markii weerar xagga cirka Ukraine ay soo qaaday. waxaana ka mid ah magaalooyinkaasi magaalada la yiraahdo Izhevsky, Nizhny Novgorod, Samara, Penza, Tumbov iyo weliba Olinovoysky.
waxaana la sheegayaa inay jirtay cabsi la xiriirta khatar soo gaari karta diyaaradaha halkaasi ka soo degaya amaba kuwa ka kacaya garoomadaasi dayuuradaha. macluumaadkan ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo Ukraine ay sheegtay in 3 saacadood gudahood 32 diyaaradood oo ah nooca droneska la soo riday. waxaana la sheegayaa in tani ay ahayd weeraradii ugu ballaarnaa ee Ukraine ay ku soo qaado muddooyinkii ugu dambeeyay gudaha waddanka Ruushka. waa hagaag wararkaasi iyo wixii ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo. waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay Gaza. militariga Israa'iil oo qirtay khasaare hor leh oo ciidankooda soo gaaray sarkaal ayaa ka mid ah lagu dilay weerar ka dhacay marayka Gaza. Al-Qassam oo yara war ka soo saartay howlgallo taangiye ay ku gubeen iyo weliba Israa'iil oo diyaarinaysa qorshe dadka marayka Gaza ku dhaqan gaar ahaan bartamaha lagu barakicinayo iyadoo la bilaabayo duulaan ballaaran oo lagu hareereynayo marayka Gaza. sheekada ugu dambeysay barnaamijkan waa inoo soo socotaa intaan u gudbin dhammaan qodobadaasi aynu ku hakanno qadar xayisiina. haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta ka maal. American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaaraynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka. haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada, American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare. waxa uu iskuulkan wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka. iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi. wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda. المصباح إسلاميك أونلاين waxaad ugu tagaysaan barashada quraanka iyo culumta diiniga ah oo hab online ah lagu baranayo. dugsigu waxa uu qaadanayaa arday cusub oo isugu jirta carruur iyo dad waaweynba. maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah xifdiga quraanka kariimka, barashada akhriska iyo qoraalka higaada, carabiga, axaadiista iyo siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam, barashada salaada iyo ducooyinka, luqadda carabiga iyo maadooyin kale. dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho ama shahaado ka turjumaysa aqoonta aad baratay. wixii faahfaahin oo intaa dheer kala xiriir WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal. wali waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnow HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagag xagga Gaza aynu ku bilownay waxaa lagu soo warramayaa howlgallo culus inay dhaceen galabta iyo caawa. xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta gaar ahaan garabka hubaysan ee ururka Xamaas ee Al-Qassam ayaa war soo saaray. waxaana ay sheegeen in taangiye ciidanka Israa'iil ay leeyihiin ay ku gubeen xaafadda Shujaaciya. waxaana tani ay ku soo aadaysaa iyadoo dagaallo culus ay socdaan, Israa'iilna ay wada duqayn ballaaran. arrintan waxay salka ku haysaa qorshaha Israa'iil ay ku doonayso inay ku hareereyso magaalada Gaza. bayaan ka soo baxay Al-Qassam ayaa waxay ku sheegeen in dagaalyahanadoodu ay ku guuleysteen in ay gubaan 2 taangi oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin isla markaasna yoolkoodii ay ka gaareen howlgalkaasi. waxay kaloo sheegeen in ay arkeen ciidamo gurmad ah oo Israa'iiliyiin u soo gurmanaya ciidanka lagu galay Shujaaciya. waxaana warkutaas ku darayaa in howlgalkan uu sidoo kale la sheegayo in Al-Zaytun howlgallo kale ay ka dhaceen waa isla bariga magaalada Gaza. inkastoo Israa'iil gudaha u gashay aagag ballaaran oo ku yaala Gaza, haddana ilaa iyo hadda uma suurto gelin inay si buuxda gacanta uga dhigto marayka Gaza. waxaana la sheegayaa in xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiintu marmar gantaal ay ka soo ridayaan deegaano ku yaala jiida Gaza, iyadoo markuu intaas ku darayo inay ku beegsanayaan magaalooyinka iyo tuulooyinka Israa'iil. war kale oo arrimahan la xiriira, hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa ka soo xigtay ila amni oo sheegaya in qabsashada magaalada Gaza ay bilaaban doonto kadib marka la dhamaystiro go'doominta imika la doonaya in la saaro. taasi oo la leeyahay waxay socon kartaa muddo 2 bilood ah, iyadoo intaana lagu daray in ciidanka Israa'iil maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan shaqada ah daadgoreynta dadka Falastiiniyiinta laga daadgoreynayo marayka Gaza. Israa'iil waraadku waxay sheegeen in taliyaha ciidanka Israa'iil Eyal Zamir uu doonayo
in qabsashada Gaza ay noqoto mid gaabis ah si loo ilaaliyo nolosha askarta loogana fogaado waxyeello soo gaarta maxaabiista. ilo wareedku waxa intaasi ku dareen in maalmaha soo socda ciidamada Israa'iil ay bilaabi doonaan shaqo lagu tilmaamay inay tahay daadgureynta dadka Falastiiniyiinta. dhinaca kale wargeyska Maarif ayaa waxa uu ka soo xigtay ila ka tirsan ciidanka Israa'iil in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uusan damacsanayn in la joojiyo howlgalka gaadiidka Gideon labo kaas oo la sheegayo in ciidanka awood u siinaya qabsashada Gaza ilaa iyo inta guul laga gaaray Xamaas. waa si hadalka loo dhigay ku dhawaad 2 sano ereyga ah hal tilaabo ayay noo jirtaa guusha ayaa waxa isku bedeshay dagaal dheer ayuu leeyahay wargeysku. dhinaca kale qoysaska maxaabiista Israa'iiliyiinta lagu haysta marayka Gaza ayaa caawa banaanbaxyo waaweyn waxa ay ka dhigeen gudaha magaalada Tel Aviv iyo deegaano kale iyagoo dalbanaya in dagaalka la joojiyo isla markaasna caruurtooda aan loo horseedin geeri. intii lagu jiray isu soo baxayada socda ama banaanbaxyada ayaa waxaa la sheegayaa in qoysasku ay dalbanayaan in arrinka ku aadan heshiiska xabajoojinta la qaato Israa'iilna ay tahay in arrintaasi ay si degdega ku hirgeliso. wararka Israa'iil sidoo kale waxaa ka mid ah iyadoo ay socdaan kulamo adag ayaa waxaa la sheegayaa in kulankii ugu dambeeyay ay yeesheen golaha kooban ee ammaanka iyo siyaasadda Israa'iil si xun ay markaasi goroday soo galeen wasiirka maaliyadda Smotrich iyo abaadulaha ciidanka Israa'iil Eyal Zamir. labadan ayaa waxa leeyahay waa la kala jiiday oo waa la kala qabtay. arrintuna waxay tahay dagaalka ka socda marayka Gaza sida wararka ugu dambeeya ay sheegayaan oo labada nin ay si weyn isku khilaafsan yihiin. waaya telefishinka kale 12 ayaa warkan tabiyay waxaana la sheegayaa sidoo kale maalinta Talaadada in kulan dambe la iskugu imaan doono kaas oo lagu go'aamin doono qorshaha marayka Gaza. xaaladda ayaa waxaa la sheegayaa inay tahay mid aad iyo aad u adag gudaha Israa'iilna waxaa ka socda doodo adag. wasiirka amniga qaranka ee Israa'iil oo ka mid ah wasiirada xagjirka Itamar Ben-Gvir ayaa isaguna si ba'an wuxuu u weeraray Benny Gantz oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka kaasi oo jeediyay hadallo uu ku darayo howlgalka ka socda marayka Gaza isla markaasna uu leeyahay waa in si degdeg dagaalka loo joojiyaa oo maxaabiista loo soo markaasi loogu bedeshaa kuwa Falastiiniyiinta. waa yahay xaaladdu way adag tahay waynu arki doonaa wixii soo kordha. caawana waxaa la sheegayaa duqeyn ba'an Israa'iil inay wado. sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Israa'iil ayaa ka mid ah qasaarihii ugu dambeeyay ciidanka Israa'iil ka soo gaaray marayka Gaza. goor sii horeysay oo maanta askari kale oo ka tirsan ciidanka Israa'iil ayaa lagu dilay howlgallo ka dhacay marayka Gaza. waa tahay imika waxaynu soo gaarnay sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. waxaan idiin hayaa sheekada ku saabsan haweeney wax khibrada aan u lahayn orod oo weliba kaba caaga ku ordaysa ayaa tartan maratonka ama orodka ku guuleysatay. haddaba aynu eegna sheekadan oo ka dhacday waddankaasi Mexico. haweeneydan 30 jirka oo lagu magacaabo Candelaria Rivas Ramos ayaa taariikh samaysay kadib markii ay ku guuleysatay tartan orod oo 63 kiiloomitir la ordaya oo ka dhacay magaalada Guayaquil ee Mexico iyadoo aan lahayn baaliyay haweeneydan wax khibrad ah isla markaasna aysan haysan qalabkii ay ku ordi lahayd. waxay ku orday iyadoo xiran kaba gacmeed iyo weliba dharka dhaqanka ee qabaa'ilka asaliga ah ee loo yaqaano Raramuri. tartankan oo socday 7 saacadood iyo 34 daqiiqo. Rivas waxay ku guuleysatay kaalinta koowaad ee qaybta haweenka maahana xagga rag laakiin dumarkii bay cagaha ugu been sheegtay. haweeneydan oo ka soo jeeda buuraleyda Chorachi weligeed hore ugama aysan qayb qaadan wax tartan orod ah laakiin bulshada ayaa ku dhiirigelisay iyadoo ay weheliyaan eheladeeda qaar ka mid ah sida saygeeda ayaa waxaa la sheegayaa in haweeneydan ay 14 saacadood ka qayb qaadanaysay orodkan iyadoo markaana la sheegayo inay ku guuleysatay biladan halkan idinkaga muuqata. weligeed tartan ma aysan gelin. kaaga sii darane xitaa kabihii loogu talagalay ma haysato. haweenkeena xagga dambe soo ordayaano haweeneydan ayaa cagaha ugu been sheegtay oo ku guuleysatay tartankii. waa dhiirigelin waxa lagu leeyahay dadaal waad gaari doontaa. waa sababta sheekadan aynu soo qaadanay. aad baad u mahadsantihiin
inta ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgeli ma ogtahay in hilibka yaalla suuqyada dalalka qaliijka yurub iyo maraykanka aad ka helayso magaalada muqdisho Somali Meat Company ku dooro hilib nadiif ah oo lagu qalay kawaan nadiif ah iyadoo la hubiyey badqabka caafimaadka xoolaha hadda dalbo hilib geel lo ama ari adigoo ka heli kara xarumaha Somali Meat Company ku leedahay gobolka Banaadir ama wac nambarka ku muuqda ku soo dhawow Safari Remit warkii ugu mudnaayo waliga aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalay u hesho Safari Remit haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la'aan saddexda jeer ugu horeysa lacag diristooda isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahi tiraha baahi loo qabay Safari Remit